Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran janalkeena Sia Media Production. Kusoo dhawow muuqaal cusub. Waxaynu ka hadli doonaa 5 caruur oo leh awoodo la yaab leh. Bal ila daawo muuqaalka cajiibka ah. Intaana u gudagelin muuqaalka, fadlan inuu subscribe garee haddii uusan subscribe kuu saarneyn si aan mar walba wada xiriirno. Gambaleelkana furo fadlan. Magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka waxaa ku nool cunug yar oo leh awoodo la yaab leh, isna cajaa'ibtiisu aad u badan tahay. Wiilkan oo waalidkiisu ay ugu yeeraan Ramses, karaameynayaan Fircawnkii reer Misir, waxa uu ku hadli karaa 7 luqadood, waxaana u suurtagal ah akhrinta fikradaha. Waxaana wiilkani bilaabay barashada luqadaha intuusan gaarin xilligii socodka, xilliga oo hooyadii ay daawan jirtay kanaalada ajaanibta ah. Cunuguna wuxuu si daa'ima ula daawan jiray kanaaladaas. Waxaa la yaab noqotay markii cunugu uu bilaabay hadalka. Kumaba hadlaya luqadda Ingiriiska oo kaliya, laakiin wuxuu ku hadli karaa luqado kala duwan sida Isbaanishka, Faransiiska, Roomaanka iyo luqado kale. Ivan Zlatkovic ma ahan wiilkan mid caadi ah sida ay yihiin kuwa da'diisa oo kale ee ku nool dalka Croatia. Wiilkani waxa uu leeyahay awoodo kala nooc ah misna la yaab leh. Wiilkan ayaa awoodi kara in uu ku dhego shay walba oo macdin ah. Wiilkan waxa uu ku nool yahay Croatia, isla markaana waxa uu la nool yahay qoyskiisa. Ivan waxa uu leeyahay jir weyn, waxaana awoodi karaa shay tankiisu yahay 3 kilogaram in uu ku dhego. Kumanaan kun oo bukaanno ah ayaa ka socda Vietnam una ordaya Cambodia si loo daaweeyo. Sababta ayaa ah in ilmo yar oo leh karti aan caadi ahayn uu ku nool yahay halkaas. Cunugan ayaa ah rajada u dambeysa ee dadku leeyihiin. Dadka intooda badanna waxay rumaysan yihiin inuu ka caawin karo inay soo kabsadaan. Dadkuna waxay hor yimaadeen wiilka gurigiisa oo ka samaysan alwaax, isla markaana ay waalidkiisu ku nool yihiin. Dadkuna waxay la ildaran yihiin xaalado badan oo naafanimo ah. Dhammaantood waxay sugayaan isla daqiiqada ay hooyadu ku keento dhalooyin saliid ah oo ilmuhu ku haysto gacmihiisa, walibana siiya qaar ka mid ah awoodihiisa cajaa'ibta ah. Wiilkan aan caadiga ahayn waxa uu ku nool yahay Shiinaha, labadiisa indhood ayaana dhalaalaya tan iyo caruurnimadiisii. Waalidkiisuna aad ayay uga walaacsan yihiin xaaladda indhaha wiilkooda oo aan u keen Shiinaha intooda kale. Aabihii ayaana u geeyay dhakhaatiir si ay u baaraan, laakiin dhakhaatiirtu waxay dhaheen waa xaalad naadir ah oo ka wakiil ah maqnaanshiyaha unugyada isha, taasoo kordhisa dareenka iftiinka. Wiilku indhihiisu waxay leeyihiin midabo kala duwan, midna u dhexeeya jaalle isku dhafan iyo cagaar. Da'yarkan waxa uu yahay mid cajiib ah, isla markaana leh mucjisooyin la yaab leh, isagoo awood u leh inuu hor istaago koronto 22 jeer halka aadanaha kale uu awood u leeyahay 11 jeer. Waxa kale oo uu awood u leeyahay inuu hagaajiyo kulaylka korontada si shil ah isagoo aan dareemin wax khatar ah. Xitaa wuxuu awoodi karaa inuu gacanta geliyo biyo leh koronto isagoo aan dareemin wax maas ah ama koronto ah.